maanta qisadan aan soo qaadanayno waa qisad cajiiba. ilaahay wuxuu inooga warramayaa, inooga qisoonayaa, inoo sheegayaa nin warkii. ninkaasi wuxuu ahaa nin wanaagsan ayuu ahaa, nin cibaado badan ayuu ahaa, nin wuxuu ahaa caalim culummadii reer banu israa'iil ka mida. wuxuu gaadhay darajada la yidhaahdo axbaaru banu israa'iil ayuu gaadhay, waa culummadooda waaweyn. ninkaa waxaa arday u ahaa 12,000 oo arday ayaa wax ka barata. waa nin caalim ah oo lagu yaqaano adduunka zaahid buu ku ahaa, qalbigiisa ma raacin. ninkaasi waxaa lagu yaqaanay alla ka cabsi badan, nin dhowrsi badan ayuu ahaa. intaa waxaa u raacsanaa nin wuxuu ahaa mustajaabu dacwa, ilaahay waxa uu weydiisto ilaahay uu ka aqbalayay. ninkaasi intaa waxaa u raacsanaa sir gaara ayuu yaqaanay. ilaahay waxa uu baray sirta magiciisa weyn ee gaarka ah, uu qofku ilaahay uu waafajiyo ee ku barya ilaahay uu ka aqbalo. ismullaahi alacdam ayuu yaqaanay, uu ku ducaysan jiray. duca alla ducada uu ku ducaysanayo ilaahay wuu aqbalaa. wax alla wuxuu ilaahay weydiisanayo ilaahay wuu siiyaa. intaasi weliba ilaahay wuxuu u raaciyey wanaag badan, khayr badan buu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala. ilaahay baa u doortay diintiis, dad badan buu ilaahay ka fadilay, wanaag badan ayuu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala. ninkani wuxuu noolaa zamankii nebi muuse calayhi salaatu wassalaam ayuu noolaa. nebi muuse ayaa baray kitaabka towraad. ninka magiciisa waxaa la yidhaahdaa balcaam binu baacuura. balcaam binu baacuura ayaa la yidhaahdaa. ninkaasi waxa uu ku dhashay, uu ku noolaa dhulkaa ardushaam la yidhaahdo, dhulkaa barakaysnaa, dhulkaa ardulambiyaa ayaa la yidhaahdaa, meesha baytulmaqdis ay ku taalo. filistiin iyo hareeraheega ayuu ku noolaa. qoomka uu ka dhashay waxaa la odhan jiray banu kancaan ayaa la yidhaahdaa. banu kancaan asalkoogu waxay ka soo jeedaan reer ciraaq ayay ahaayeen. meesha la yidhaahdo baabil ayay ka yimaadeen. way soo hijroodeen, dhulkan shaam ayay u soo hijroodeen. nebi muuse calayhi salaatu wassalaam oo qoomkiisii reer banu israa'iil wada ayaa tegay dhulka iyo shaam. kancaaniyiintu markay arkeen nebi muuse oo reer banu israa'iil wada, waxay u maleeyeen in dhulka laga saarayo oo dhulkoogii hore lagu celinayo ciraaq. sida awgeed way cabsadeen, way argagaxeen. waxay is yidhaahdeen waan ili kala kaxaynayaa. waxay u ordeen ninkan aan ka hadlayno ayay u ordeen. balcaam ibnu baacuura ayay u ordeen. waxay ku yidhaahdeen na badbaadi, waa kan muuse dhulkii shaam soo galay, waa kan reer banu israa'iil wata. wuxuu doonayaa inuu na saaro, inuu na musaafiriyo, uu ciraaq nagu celiyo. sidaa awgeed maanta noo gurmo adigu. maxaa yeelay waan kala tegaynaa, waan kala baahaynaa, waan googo'aynaa. bilaa dawlad baan noqonaynaa, bilaa watan ayaan noqonaynaa. quwaddaydii baa lumi, awood yeelani mayno. qoomkaagii baan nahay, annagaa naga dhalatay nin yahow. maanta waa maalinkaan kuu dhigannay ee noo gurmo, na badbaadi, waxna la qabo ayay yidhaahdeen. maanta ayaana laga saarin dhulkayagan,
meeshan shaam waan ku kornay, waan ku barbaarnay, waan ku badannay, quwad baan ku yeelannay, ayaana laga saarin maanta. waa kan muuse ciidankiisii buu wataa. muuse waa nin xoog badan, ciidankiisuna waa ciidan fara badan, lays hortaagi kari maayo, la dagaalami kari mayno, sidaa awgeed noo gurmo ayay ku yidhaahdeen. maxaa nii qabtaa? waxaa tahay nin ducadiisa la aqbalo, ilaahay ducadiisa u aqbalo, ilaahay bari. habaar muuse iyo asxaabtiisa la socota ee reer banu israa'iila ayay ku yidhaahdeen. waxa uu ku yidhi waylakum, hooggiinna ba'ah, war miyaadaheen ma nebigii ilaahay oy malaa'igtii la socoto oy dadkii mu'miniintii la socdaan ayaad doonaysaan inaan habaaro? miyaad waalateen? maxaa inii dhinnaaday? sidee tihiin? miyaynu ogayn inaan muslim ahay? haddii sidaa aan yeelo oon habaaro, waxaad ogaataan adduunkaygii iyo aakhiradayddiiba waan waayey, waan silcay, dhibaata igu dhici, waan gaaloobay. ma nin nebigii ilaahay habaaray oo ducadiisii la aqbalay maxaa u hadhay bay ku yidhaahdeen, ayuu ku yidhi. dhinac walbay kaga yimaadeen, way ka codsadeen, way ku celceliyeen, intaba wuu diiday, kamay quusan. xoolo badan baan ku siinaynaa bay yidhaahdeen, hanti badan baan ku siinaynaa, darajo ayaan ku siinaynaa, madax baan noo noqon bay yidhaahdeen, dumar badan ayaan ku siin, waad guursan. waxay ku yidhaahdeen waxaanu kaa dhigi mas-uulkayaga, adigaana maamuli, hoggaanka adaanu kuu dhiiban. dhinacii adduunkaa lagaga yimid. ninkii wuxuu bilaabay inuu fikiro, inuu arrinta rogrogo, inuu eego. iimaankiisii baa daciifay, iimaankiisii ayaa daciifay. ma ilaahay ayuu ka tegi oo shaydaan buu raaci? ma iimaankiisan ayuu ka tegi oo gaalnimu ka dooran? ma aakhiro ayuu iloobi oo adduunkan gaaban ayuu dooran? naftiisii baa daciiftay, iimaankiisii baa daciifay. maal ayuu doortay oo adduunkiisii, diintiisii ku iibsaday. adduun ayuu aakhiro ku beddeshay. gaalnimo ayuu ka doortay iimaankiisii. ayuha alaxibba, ibtilaaha ugu daran, imtixaanka ugu daran waa iimaankaaga oo ilaahay uu ku sejiyo. waxaa ugu weyn, nicmad ugu weyni waa nicmat aliimaan, waa nicmat alislaam, waa nicmat alqur'aan. taa wax ka fiicani ma jiro. laakiin imtixaanka ugu daran, ibtilaaha ugu daran waa maalinka aad gaalnimada dooratida islaamka aad ka tagtid, waa maalinkaad iimaan weydid, eed gaalnimo iyo shirki ku dhacday. maalinkaasaa ugu daran. allahuma habbitna cala aliimaan, allahuma habbitna cala alislaam. way fitneeyeen, diintiisii bay ka fidneeyeen. kadib wuxuu yidhi waan habaartamayaa, habaar baan doortay. wuu dhaqaaqay dhinaca iyo boortii nebi muuse agtiisa ahayd ayuu koray. wuxuu doonayaa inuu habaaro nebi muuse iyo dadka mu'miniinta ee raacay. ilaahay carabkiisii buu beddelay. markuu yidhaahdo nebi muuse habaar, wuu u duceeyaa. markuu yidhaahdo kancaaniyiinta u ducee, wuu habaaraa. arrintii baa isrogtay. waxay ku yidhaahdeen war maxaa ku helay? miyaad waalatay? inaadna habaaraysid miyaad arkayn? ood muuse iyo asxaabtiisiina u ducaynaysid. waxa uu yidhi wallaahi ma garanayo, carabkanna anigu ma hayo, ilaahay baan rogaya. laa amliku hayra daalik, arrinta arrin aan ahayn anigu ma hayo. arrintanna iraadadeyda way ka baxsan tahay, doonisteeda way ka baxsan tahay. maxaan samaynaa bay yidhaahdeen. haddaba dhulkii baa la qaadan, waddankii baa la qadi, wax walbaa la waayi, waanu kala tegi, waanu baabi'i. maxaa yeelna noo fikirninyo? wuxuu yidhi balcaam binu baacuura oo hadlaya, lam yabqa ila almakru waalxiila.
وحاري ملك أنا خلاص دين كيجي وانواي لقد ضاعت مني الآخرة بهذا الصنيع فعل كان أنسمي آخرا كواي دين تيدي وانواي أرين بقي هدي خلاص أرين تاسوا محي إن مكرين لن نمانو هي حيلة سياستنا لن نمانو إن شطارة لن نمانو إن دينع كلك نمانو ودينعين دينع معاصدة دينع معاصدة إن نحدود أن معاصي يحمان أن كفافنو حمان تهدي كفافتو زينيدو نحدود أي كفافتو معاصدة أي كل عان إلهي النصرين مايو ملائكتو يكتغي نحدود بلايو أي كسو دقي لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب بلا ما سودكتو إلا ذنبي بلا سودكتها مركز سيدا أوجد بلدا هي امتحان كان هي وحن سي أيغو سودكتو وإن نحدود معاصي أن كفافنو سيدا أوجد إلهي أكالميني مايو مركا إلهي أكالميني مايو ملائكتنا ويكتغي وح أكالمينيا مجيرو ninkii shalay wanaagga dadka amrayay xumaanta ka reebayay macsiba ku dhacay gaalnimo ku dhacay dhinaca kale uga baxay isagii baa dadka xumaan iyo shar iyo waxa fiicneen amraya waxa uu yiri dumarkiina qurxiya dumarkiina kancaaniinta dumar waaweyn oo qurqurux badan ayaa lagu yaqaanay dumarkaasi ha iska dhigaan sidii dad wax iibinaya reer banu Israa'iil هدح قلان فيان حمانتا إيا الزينة دحدودة أيين الديدين رقا هلقاتو دحدودة مركي حمانتا سي كفافتو أيا وحا دعي إن إلهي النصرين وايو أيا دعي ملائكتنا أي كتكتو كدب نبا أيمد سيدي بيالان نبا نبي موسى أيمد عليه السلام ناق قرح بدن بوطاه مركاسا وحا أيري waxaad oran doontaa muusow tani xaraan bay ka tahay laakiin kuma adeecay buu yiri oo ka haystay gurigiisu la tagay ilaahay daacuun ayuu dadkii ku saliday xanuunkan daacuunka ah ayuu ilaahay ku saliday 7,000 oo qof ayaa dhintay nin la yiraahdo fanxaas ibnu cizaar ayaa arinkii maqlay kadibna seeftiisii buu soo qaatay iyo warankii labadii xumaanta sameynayay ayuu dilay oo nafta kaga qaaday markaas waxa uu yiri allahumma hakada naf'alu biman ya'sik ilaahu qofka ku aasiya sidaasanu yeeli oo wanu dili ilaahay taacunkii buu ka qaaday dadkii way maartay way ladnaadeen 7,000 oo qof baa ku dhintay inta kale ilaahay ka caafiyay waxay ahayd fitnadii ugu horeysay ee reer banu Israa'iil lagu halaagay dumar ay ahayd sida awgeed nabigu waxa uu yiri fattaqullah ilaahay ka cabsada wattaqun nisaa dumarkana iska ilaaliya fa inna fitnata bani Israa'iil fitnadii reer banu Israa'iil lagu halaagay kaanat fi nisaa dumarka ay ahayd wala layaal qisada cajiibka ah ayuu ilaahay inooga waramaya subhanahu wa ta'ala ninka la imtixaanay ninkaasi aakhiradiisii adduunku iibsaday diintiisii adduunku iibsaday ninka fidnoobay ilaahay waxa uu leeyahay suuratul a'raaf isaga oo kaga waramaya aayada 157 watlu alayhim naba alladhi aataynaahu aayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytaanu fakana min al-ghaawin إلهي وحا أوليه النبي الله واتلو عليهم كو أخري وركي كي وركيسي كو أخري نبأ ورك وين بالي هذا النبأ إلهي وحا أوليه واتلو عليهم تدك كو أخري والشيخ نبي الله نبأ الذي آتيناه آياتنا كان آيات كيجي سيني آياتنا بإلهي آيات كيجي وان كراميني وان وناجيني دعاء كأقبليني اسم الله الأعظم ما سيني علم بدن بان برني تقي بان كدغني قف صالحان كدغني قف عباده بدن ايان كدغني وحان u dooranay diinta yadi فانسلخ منها
وكدح بحي وحي أردن وكدح بحي فانسلخ منها وكبحي وكتجي فأتبعه الشيطان ما ضبق لمركب الراعي فكان من الغاوين كوي لما أيك من نقضي هلاك سمي إلهي وحوله ولو شئنا هدي أن دونه لرفعناه بها كربا وقاد لهين ومقعبا إيلي لهين عالم وين بقي عيسى جرسين لهين ولكنه أخلد إلى الأرض لكن قلك اسكدتشي قلك أيو دورتي قرح ذا أدونك أيو دورتي واتبع هواه هودي سيب الراعي وحي نفتي سو أي دونيسي أيو الراعي إلهي مثل حنبه كنت المامية والعياذ بالله إلهي وحوله فمثله كمثل الكلب كاسيت سالهيس وأي أوكله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أي هدد إريدين ودئريتين عرب كل الله أو تتركه أما أتكد يسيد يلهث عرب كل الله أما وحشاق ويسميه سيدا أي قاس أوكله أما إريو أما هائرين أما هقا شودو أما هدرق سنادو عربك أي لولا يامر وضع ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا كو آياتها يقوم كبيني الساس لديك ما بإلهي فقصص القصص ورنك أقورهم قصص كاس لعلهم وحي مذيهين يتفكرون إن فكران آيات كاسي وحي إن ليين فكرة قف كاسي الدين تسيبوا إيبي عقيدتي سيبوا إيبي عقلي سيبوا إيبي دميركي سيبوا إيبي وحي إيبي مستقبلكي سيبوا ناكسان آخر أيو إيبي دينتيسي الدون بكو دورتي مالي مير الدون ير أوفانية أو تغيى أيكو دورتي أحبتي في الله مثل حنويان وتصالح ننكا شيخ عالمك إنو دينتيسي إيبيو إنو إلهي كبان شيغو إنو الدون ير دورتو أو قرح ديدي إيو دلالكيغا إنو دورتو إنو ننكي داعيغا أها شالي تولي مانتانا داعي إلى الضلالة حمانتا ذاتك أويارو وأرن آدي آدو فالحن إلهي مروحة وكت المامي كالكل أي بكت المامي مركل مثل الذين حملوا التوراة حمار بو إلهي مركانا كت المامي ذاتك مركا إسعايا وحان كلبيغا أيغا يو وحان دميركا أي يسيلهدان وشيغ حن إلسكو آيو ولا ليال ابتلاها أقويني وإيمانك أقول لك ابتليه امتحانك أقويني وامتحانك الدين تهذا لك قليل سيدا أوغيد قفك وإنو مبدئيسا هيستو وإنو إلهي إن بدن أبريو إنو إلهي مبدأ إيا الدين تكسوغو وكدنتو فتنة إن لقد دكتونادو مرولبا وفتنة النساء دمرك إن لقد دكتونادو شركة دمرك اللي قد دكتونادو وإن ما أرتاي دمرك اللو حجابو دمرك وحباي فدنين كران نعم دمرك ويواناك سيهين دمرك خير بدن بإلهي كسوغي دمرك واكوا رقا دالي واكوا أنبياء دالي واكوا هويدين إيو ولاشين إيو دمرك خير بدن أياكو جيرا لكن هدي لدونا إن رقا لغو فدنيو سفضد أيا لغو فدنين كران سيدا أوغي وإن دمرك اللو حجابو وإن دين تلبرو أحبتي في الله وحلو بهيهي إنان دينتين كفانو إنان إسكا إلالينو إنان إلهي معاسديس أن كدعنو هدان كدعننا وإنان توبت كينو مروا البنا وإنان إيمان كينا إيا دينتين إيا عقيدتين أن كددانو تاسا قولة تاسا خيرة تاسا وناقة تاس ويان تئنا بدبادينيسا الدنيا آخرة حلقة كالعيا جرتا أو إنو قصو سعوتا أو قصصك أن كقور رمينو قصص في القرآن الكريم لسعد وناكسن وجزاكم الله خيرا وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.